bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan halkan waa raadiyo hirsamo waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii heehaabka hirsamo ee idaacadda hirsamo dhacdooyin sugan arrimaha la yaabka waxyaabaha kala duwan ee aad ku xiisaha badan intaba waxaad ka dhageysan kartaa ina barnaamijka heehaabka hirsamo isla warbaahinta hirsamo. barnaamijkan waa barnaamij aad u xiiso badan noqona qof inta badan ku tixan barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan iyo kuwa kale oo idin sii qalin doono waxaana ka mid ah warkii toddobaadkan ugu wanaagsanaa caalamka ee dad badani ka farxiyay. sidoo kale barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan nin qalin caloosha ah lagu sameeyay oo arrin kale ku dhacday. qodobadaas baad barnaamijkeena aad ku maqli doontaan inta uu barnaamijka hawada ka baxay. waxaa idin soo jeedin doonaan goos toosi ah. waxaadna kala socon doontaan page-ka iyo channel-ka idaacadda kuna soo biir channel-ka oo subscribe leh. magac waa la helaa maqaan waa la gaaro meediyaha darajana waa muhiimka warbaahineed mar waliba loo habeeyaa mar walba ku taxanaaw ka mid noqo saaxiibay idaacadda hirsamo meel walba hirsamo mar walba meel kasta joogto ku xirnow raadiyo hirsamo adigoo soo booqanaya barteena YouTube-ka aan ku leenahay raadiyo hirsamo. kadibna waxaad arki doontaa waxyaabaha kala duwan ee uu baahiyo idaacaddan. waxaan leenahay ka mid noqo saaxiibayaasheena. aan ku horeyna dhageystayaal nin qalin caloosha ah lagu sameeyay oo ay arrin kale ku dhacday. bukaan laga qalay caloosha ayaa la sheegay in dhuuntiisa ay ku dhaceen ilka macmal ah taasi oo in la ogaado ay qaadatay muddo 8 maalmood ah. 72 sano jirkan waxa uu sheeganayay xanuun dhuunta ah marka uu cuntada liqayo. wuxuu booqday isbitaal si qaliino kala duwan ugu helo dhibkii haystay. isbitaalka James Baget oo ku yaala Norfolk, England ayaa sheegay arrinka ninkan uu ahaa mid la yaab leh ayna wax ka qabteen 6 maalin kadib markii qalin looga sameeyay caloosha. waxa uu tagay isbitaalka isaga oo ka cabanaya qaadashada cuntooyinka. dhaqaatiirta isbitaalka Gorleston waxa ay rumaysan yihiin inay arrintani sababtay markii bukaanku wooyinka ka hor inta aanan qalinka lagu sameyn. kadib markii uu ninkan isbitaalka ku laabtay muddo 2 maalmood ah. dhaqaatiirta waxay eegeen dhuuntiisa waxayna ku arkeen ilka macmal ah oo ku taagan. dhaqaatiirta waxay go'aansadeen inay qalin kale uga sameeyaan dhuunta. qalinka ayaa halis geliyay noloshiisa wuuna dhiig baxay taasi oo sababtay inuu u baahdo in dhiig lagu shubo. Hazel Sherwood madaxa isbitaalka ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ka dhan ah sida ay arrintani u dhacday. tilmaaweeye toosan tusabeeye waxtar leh tabaweeye la isku tilmaamo tabweeye aqoonoo tusaale weeye tamaamaho tubtii lagu tanaadiyo tiigsi weeye idaacadeed hirsamo tubteeda taariikhdeeda tabanoo tacab badan loo maray hirsamo rediyo tiirka aasaasiga iyo tubta nabadda waa hirsamo rediyo. qodobka kale nooxiga waxa uu noqonayaa warkii toddobaadkan ugu wanaagsanaa caalamka ee dad badan ka farxiyay. muddo 10 sano ah caabuqa cudurka Ebola ayaa cabsi badan ku hayay dad badan oo ku nool caalamka. tiro yar oo cudurkaasi ku dhacay ayaa ka badbaaday balse hadda waxaa muuqata in taas ay isbedeshay kadib markii saynisyahanada ay ku dhawaaqeen talaal tijaabo ah oo la siinayo dadka qaba cudurka Ebola ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. waxayna taas sare u sii qaaday rajadii laga qabay in dadka qaba cudurka Ebola ay ka badbaadaan. daraasad la sameeyay ayaa muujinaysa in ku dhawaad 90% dadka qaba cudurka caafimaadi karaan caabuqaas haddii marka hore uu cudurka haleelo la siiyo daawadan waxtarka leh. Professor Chen Jacques
oo ah isuduwaha ka jawaabidda xaaladaha cudurka Ebola ayaa ku dhawaaqay arrintan isaga oo sheegay in dhawaan cudurka laga hortagi doono lana daweyn doono dadka uu ku dhaco wuxuuna tijaabada cusub ku tilmaamay warka ugu wanaagsan sanadkan aad ayaan ugu faraxsanahay arrintaasi waxaana 40 sano oo noloshayda ka mid ah ka fikirayay sidii aan u daweyn lahaa caabuqa Ebola marka tani waa guul aan gaaray ayuu yiri Chen oo la hadlayay BBC-da daraasadda la xiriirta cudurkan ayaa laga sameeyay dalka Congo oo ay cudurkani ugu dhinteen 1800 qofood tan iyo bishii Agoosto ee sanadkii hore tijaabooyinka ayaa bilowday bishii November ee sanadkii hore waxayna xilligaasi ahaayeen 4 daawo oo kala duwan 700 oo qof ayaa loo shaqaaleysiiyay la tacaalida cudurkan waxaana natiijada dadkii ugu horeeyay oo gaaraya 499 lana siiyay daawadaas ay yihiin dad la garanaya Dr. Muyembe oo kamid ah dhaqaatiirta ku howlan daweynta cudurka ayaa sheegay in laba kamid ah PGEB3 iyo MAB114 ay yihiin kuwa si adag uga hortaga caabuqa Ebola dawooyinkan waxay kamid yihiin kuwa adkeeya difaaca jirka kuwaas oo loo qalabeeyay inay ka hortagaan caabuqa keena cudurka Ebola qaar kamid ah dadkii la siiyay dawadan ee la sheegay inay daweyso Ebola waxay ka faa'iideen in khatartooda ay hoos u dhacday 29% marka loo eego kuwii aan daawooyinka helin ee ay khatartoodu gaartay 60 ilaa 67% sidoo kale dawada kale ee ayaa la sheegay in ay ayaduna ay hoos u dhigayso khatarta cudurka 34% balse arintani la yaab kale ayaa in dawada la hindisay ay 6% hoos u dhigtay dadka halista cudurka uu ku yaryahay kuwaasi oo horey loo siiyay dawada halka marka la siiyay dawada kale ee MAB114 ay yareysay khatarta 11% waa muhiim sababtoo Ebola wax dawo ma lahan wax talaal ahna horey uma lahayn marka tani waa war wanaagsan ayuu yiri Dr. Muyembe oo kamid ah dhaqaatiirtii ogaaday cudurkan sanadkii 1976 ayaa intaa raaciyay in bukaanadii la siiyay dawooyinka xoojiya awoodda jirka iyo xaaladooda ku soo hagaagtay saacad gudahood waxaana uu hoosta ka xariiqay in dawadaasi ay tahay mid daweyso cudurka balse aysan ahayn mid ka hortagta cudurka Ebola 2 asbuuc gudahooda uu caabuqaasi ka baxayo dhiiga qofka qaba waa in aan taxadirnaa si ay bukaanada gacanta ugu dhigin dawada dareeraha daweynta waa mid lagaga hortagayo caabuqa mana ahan talaal ayuu yiri natiijada kama dambaysta ee dawooyinka tijaabada ayaa la filayaa bilaha September iyo October ee sanadkan khubarada caafimaadka ayaa sidoo kale sheegay in helitaanka dawooyinka cusub ay gacan ka geysanayeen faafidda caabuqa oo farabaan ku haya dad badan oo ku nool qaaradweynta Afrika saamaynta waa mid qayrul caadi sababtoo dadku way ka soo horjeesteen dawada cudurka Ebola waxayna xarumaha lagu daweeyo u aqoonsadeen inay yihiin meel lagu dhinto sidaasi waxa BBC-da sheegay Dr. Muyembe ma arki karaan dad halkaas aadaya kadibna dib ugu laabanaya qoysaskooda iyo bulshadii ay ka yimaadeen waxa ugu wacan dawada la hirgeliyay marka waa in aan meesha laga saaro qaabka uu cudurka ku faafi karo ayuu raaciyay rajada la qabo dhaqaatiirta ku sugan magaalada Goma oo ku taala xadka dalka Uganda iyo Rwanda waxay dhawaanahan la tacaalayeen sidii xal loogu heli lahaa cudurkaasi hadalkeeda la deeqay jirkii naqdeedo haatan hayadeeda qalbiga naga habaysay hirsamo maaliga ilaha saawo hirsamo haddaanahay hodan waxaan ku hayo hormar iyo irhaamisani iyo sidaan ku horgeli lahaa hadalkaygiidadii howd inaan mariyo hayo soomaaliyeedeeday reedhaleeyadageysto hirsamo ku horto hoodalayda yahayo ayuu hadalkeedu yahay ilaha saawo hirsamo haddaanahay haatan sayno helid هاي هرسمو قلها ساوي
talow halkaan kaa heediya misna aan kaa hela iga hela haatan caatufkaaga dhexdii halka bulshada casrigan heedhe youtubkiigaho maalmo ka hor hooyo iyo ilmo yar oo ay dhashay oo ka badbaaday cudurka Ebola ayaa dib loogu soo celiyay halkii ay deganaayeen kadib markii loo arkay in laga daweeyay cudurka. Francine Bintu iyo canugeeda oo 1 sano jira waxaa 2 isbuuc ka hor la geeyay isbitaal si looga daweeyo cudurka oo horay u galaaftay nolosha saygeeda. Ilaahay baa ku mahadinaya ayay tiri, waxaan la xanuunsanaa cudurka Ebola balse hadda waa laga daweeyay kastoo ninkayga uu u dhintay sababtuna waxay ahayd in xarumaha lagu daweeyo cudurka la geeyay xilli dambe. waxay intaasi ku dartay in cudurka Ebola uu wali jiro jirkayga ayaa ka dareemay cudurkan waa dilaa balse si dhaqso leh ayaa loo daweyn karaa. haddaba muxuu yahay cudurka Ebola? Ebola waa caabuq keeni kara in qofku uu qandhado, daciif noqdo, murqaha iyo cunahana ay xanuunaan. calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah hunqaaco ama matag, shuban iyo dhiig uu ka qulqulo uurku jirta iyo jirka sare. cudurka waxay dadku ku kala qaadi karaan istaabasho uu la sameeyo qof kale oo qaba cudurka Ebola, gaar ahaan marka la taabto maqaarka qofka, afka, sanka ama dhiigga uu mantagay qofka qaba Ebola. dadka ayaa u dhinta in xubnaha jirka oo daciif noqda iyo buuq iyo fuuqbax ba'an. barnaamijkii heehaafkii Hirsamo oo aad kala socoteen idaacadeena Hirsamo waynageynta dib u kulmi doono barnaamijkan kiisiga. waxaan idinkaga tegaynaa bahda radio Hirsamo sidaas iyo nabadgeliyo. waxaana idin xusuusinaynaa inaad ku soo biirtaan page-ka idaacadda iyo sidoo kale channel-ka idaacadda adinkoo subscribe saaraya, sidoo kale page-kana like ku muujinaya. radio Hirsamo hirka nabad guusha.